bishii January 4 sanadkii 2019 maalin Jimco ah saacaduna ku beegan tahay 4:15 subaxnimo Falastiin gaar ahaan deegaanka Biir Sabca xaafadda Xawaara ee Naqab waxaa soo gaaray gaari jiib ah oo ay wateen ciidanka gumeystaha Israa'iil. Gaariga waxaa la socday ciidamo badan oo kuwa gumeystaha ah, sidoo kale waxaa weheliyey cagaf-cagafyo dhowr ah. Gaariga waxaa ka soo degay sarkaal lagu magacaabo Rafael. Wuxuu cagaf-cagafyadii ku amray inay si degdeg ah u burburiyaan dhismooyinkii xaafaddaas ku yiilay. Sababtuna waxay tahay sida uu ku dooday in dhismooyinkaas ay ahaayeen kuwo aan si sharci ah lagu dhisin. Ficil ahaanna baldoosaradii ayaa bilaabay inay dumiyaan oo ay dhulka dhigaan dhammaan dhismooyinkii meesha ku yiilay ee ay degganaayeen Falastiiniyiinta. Muwaadiniinta Falastiiniyiinta ee meesha deganaa keliya waxay awoodeen inay carruurtooda iyo wixii alaab ah ee ay horay ula sii bixi karaan kala soo baxaan guryahooda. Aad ayay u niyad jabsanaayeen, sababtoo ah waxaa hortooda si gardarro ah loogu burburiyey guryahoodii ay ka soo dhaxleen awoowayaashood. Muwaadiniintaas guryahoodii laga burburiyey waxaa ka mid ahaa wiil lagu magacaabo Shahaada Risaaq. Wuxuu goobjoog u ahaa sida ay cagaf-cagafyada gumeystaha u burburiyeen gurigii uu ku dhashay kuna soo barbaaray. Dhinaciisa waxaa taagneyd hooyadiis oo iska barooranaysa. Shahaada aad ayay u damqisay oohinta iyo baroorta hooyadiis, balse ma uusan lahayn awood uu wax kaga qaban karay ama uu kaga beddeli karay waxa socday. Laakiin waxaa ku soo dhacday fikrad beddeli doonta noloshiisa oo dhan. Maalinba maalinka ka dambaysa, Shahaada waxaa maskaxdiisa ku sii weynaanaysay fikraddaas, ilaa maalinkii dambe uu soo gaaray in uu ka mid noqdo sirdoonka xoogagga muqaawamada Falastiiniyiinta. Wuxuuna noqon doonaa basaaskii ugu halista badnaa ee muqaawamada ku dhex beerto gumeystaha Israa'iil. Wuxuuna soo gudbin doonaa xogo iyo macluumaadyo xasaasi ah oo dhabarka ka jebin doona Israa'iil. Shahaada si gaar ah wuxuu ugu dhex milmi doonaa ciidamada iyo saldhigyada gumeystaha Israa'iil. Wuxuu ka mid noqon doonaa ciidanka militariga Israa'iil, balse waa jaajuus lagu dhex qariyey. Gumeystaha Israa'iilna kuma baraarugsana. Laakiin si aan qisada oo dhan u fahanno bilow ilaa dhammaad, waa in aan gadaal u laabannaa, gaar ahaan bishii Maarso 3 sanadkii 1997 Falastiin, gaar ahaan saxaraha Naqab, xaafadda Xawaara, waxaa ku dhashay Shahaada Risaaq. Qoyskiisa ayaa u soo qaxay saxaraha Naqab kadib markii gumeystaha Israa'iil ay ka soo barakiciyeen deegaankoodii. Bilowgii markii gumeystaha Israa'iil uu qabsaday Falastiin, Shahaada wuxuu helay jinsiyadda Israa'iil. Wuxuuna ku soo koray nolol iyo duruuf aad u adag intii uu yaraa. Wuxuu la kulmi jiray xadgudubyo dhowr ah oo kaga imaan jiray ciidanka gumeystaha. Isagoo xaaladdaas ku jira ayuu dhameeyey waxbarashadiisii aasaasiga ahayd ee dhexe iyo sare. Aad ayuu ugu fiicnaa dhanka waxbarashada, wuxuuna ahaa arday maskax furan. Shahaada markuu soo weynaaday oo uu qaan gaaray, wuxuu saaxiib la noqday wiil lagu magacaabo Maxamed Qaalib oo ay deris ahaayeen. Wuxuuna u ahaa sida walaal la dhashay oo kale, sababtoo ah waxay aad isaga dhowaayeen dhinaca afkaarta iyo mabaadi'da. Had iyo jeerna waxay ka soo horjeedeen inay ka hoos noolaadaan gumeystaha Israa'iil. Hagaag muddo kadib, Maxamed waxaa xiray ciidanka gumeystaha iyagoo ku soo eedeeyey in uu suuq geynayay fikradda jamaacada Salafiga. Shahaada aad ayay u saamaysay xirista saaxiibkiis, waxaana ka sii darnayd markay ciidanka Israa'iil oo wata cagaf-cagafyo ay dumiyeen gurigii uu ku dhashay kuna barbaaray, iyagoo ku marmarsiyoonaya inaan si sharci ah lagu dhisin. Intaas ka badan, Shahaada waa awoodi waayey in uu aamuso oo uu qarsado waxa uu dareemayey. Sidaas darteed, 5tii bishii May sanadkii 2021, Shahaada wuxuu go'aansaday in uu ku biiro muqaawamada, balse waxaa dhib ku noqotay in uu aqoonin meel uu kala xiriiro si uu ugu biiro. Waxaa ku soo dhacday fikrad ah in uu la wadaago wiil kale oo ay deris ahaayeen, kaasoo isagana u ballan qaaday in uu ku xiri doono mid ka mid ah saraakiisha muqaawamada oo marinka Gaza ku sugnaa. Wuxuu kale u ballan qaaday in uu isaga u geyn doono marka uu ka soo dhaadhiciyo wax walba. Shahaada kama labalabayn go'aankiisa, wuxuuna u sheegay in uu diyaar u yahay 100%. Saaxiibkiis ayaa ku yidhi, tamaam, si fiican ii dhegayso. Nambarka qofka aan ku siin doono qof caadi ma ahan. Shakhsiga aad la hadli doonto waa mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa muqaawamada. Yacni qofna uma sheegi kartid xogtiisa. Marka uu kaa qabto ama uu ku soo wacana, keliya waxaad dhahdaa marxaban dictor. Wax intaas ka badan ama ka yarna ma dhihi kartid. Isaga ayaa ku fahmi doona. Adiga keliya
intaas uun ku dheh, sidaas ayuu ku yidhi saaxiibkiis. shaxaada wuxuu wacay taleefankii la siiyey, waxaana ka qabtay doctor abu sulaymaan. waa uu isbaray, wuxuuna u sheegay inuu yahay wiil falastiini ah kana soo jeeda naqab. wuxuu kaloo u sheegay wiil ay saaxiibo yihiin inuu taleefankiisa soo siiyey, sidaasna wuu la soo xiriiray. abu sulaymaan ayaa ugu jawaabay, tamaam, waan hayaa warkaaga, ii sheeg maxaad u doonaysaa inaad nagu soo biirto. hagaag. shaxaada wuxuu bilaabay inuu si faahfaahsan isku baro dictoorka, magaciisa oo buuxa, noloshiisa, danqoyskiisa, waxbarashadiisa iyo duruufaha ay ku nool yihiin. shaxaada markuu dhammeeyey inuu si faahfaahsan xogtiisa ugu gudbo, doctor sulaymaan waa uu aqbalay dalabkiisa ahaa inuu ku biiro safka muqaawamada. bilowgii dictoorka kama dalban kumana aaminin in uu diro shaxaada howlgallo waaweyn, maadaama uu cusbaa. bilooyin dhowr ahaa ayaa tababaro adag la siinayey. howlgalkii ugu horreeyey ee loo igmadayna wuxuu ahaa inuu sawirro ka soo qaado saldhigyada ciidamada gumaystaha ee xaafadooda bi'ir sabca, gaar ahaan kuwa aadka ugu dhow xaafadooda. waxaa kaloo laga dalbaday inuu sawirro ka soo qaado tareen mara xaafadooda iyo in uu la socdo dhaqdhaqaaqyada tareenkaas, uuna soo gudbiyo xogta hadduu aaggaas ku arko dhaqdhaqaaqyo aan caadi ahayn oo militari. shaxaada wuxuu fuliyey wax walboo laga dalbaday. abu sulaymaan markuu ku qancay hawsha uu qabtay, waxaa loo igmaday howlgalkii xigay. gaar ahaan markan waxaa laga dalbaday in uu warbixino ka soo diyaariyo shakhsiyaadka uu yaqaano ama uu maqlay inay ka shaqeeyaan laamaha ammaanka gumaystaha ee xaafadooda, iyo sidoo kale inuu dabagal ku sameeyo oo uu la socdo shakhsiyaadka uu ka shakiyo inay xiriir la leeyihiin laamaha ammaanka israa'iil. shaxaada wuxuu bilaabay inuu soo ururiyo xogaha iyo macluumaadyadii uu doctor sulaymaan ka dalbaday. maalmo kadibna sidii looga dalbaday iyo xogo kaleoo dheeraad ah ayuu farta ka soo saaray abu sulaymaan. wuxuu soo gudbin jiray xogo iyo macluumaadyo faahfaahsan oo sugan, taasoo gaarsiisay heer uu abu sulaymaan markan aad ugu kalsoonaado shaxaada. maadaama khibrad ahaan iyo garaad ahaan markan maskaxdiisa ay korortay, uuna noqday nin lagu kalsoon yahay, shaxaada waxaa loo xil saaray howlgalkii ugu muhiimsanaa uguna halista badnaa. waxaa la faray inuu sawirro iyo muuqaalo ka soo qaado saldhigyo iyo xarumo militari oo xasaasi ah kuna yaal deegaanka uu ku noolaa ee bi'ir sabca. doctor abu sulaymaan oo la dardaarmaya ka hor howlgalkan ayaa shaxaada ku yidhi sidan, idhegayso wiilkaygow, howlgalkan muhiim ayuu noo yahay. si fiican u digtoonaaw, tallaabo walba aad qaadaysa ka baaraan deg. inta aad ku guda jirtid howlgalka, si dabiici ah u dhaqan, wax isbeddel ah yaan lagaa dareemin. ha samaynin eegmo ama dhaqdhaqaaq shaki keeni kara. midna ogaaw, haddii lagu qabto inta aad howlgalkan ku jirtid ama aad ku dhimatid, waxaad tahay shahiid waddankiisu u adeegayay. mar walba faa'iido ayaad haysataa. hagaag. shaxaada oo markii horeba rabitaankiisa ku doortay hawshan ayaa aad ugu qancay hadallada dhiirigelinta ee doctor sulaymaan. wuxuu go'aansaday inuu fuliyo howlgalkaas. qorshaha wuxuu ahaa in uu ku dhex wareego xaafadaha bi'ir sabca ee u dhow xarumaha iyo saldhigyada militari, halkaasna uu ka soo arooriyo xogaha, macluumaadyada iyo sawirrada loo diray. shaxaada wuxuu gadagalay howlgalkii loo diray ilaa uu maalinkii dambe gaaray meel u dhow mid ka mid ah saldhigyada militari ee ugu weynaa deegaanka bi'ir sabca. saldhiggan waxaa lagu magacaabaa nefatim. waa saldhig dhinaca cirka ah, laakiin xogta ka yaabisay shaxaada waxay tahay in saldhigga barxaddiisa ay yaaleen diyaaradaha dagaalka casriga ah ee ciidanka gumaystaha israa'iil, sida diyaaradda F-35. waxaa taas ka sii muhiimsaneyd in saldhiggan uusan ahayn mid caadi ah, maxaa yeelay wuxuu qaybta hoose ku lahaa qolka laga hago howlgallada, keliyana ay geli karaan saraakiisha sarsare. yaa allah, shaxaada wuxuu helay xog xasaasi ah, aadna muhiim ugu ah muqaawamada. wuxuu ogaaday dhaqdhaqaaq walba oo saldhiggan ka socday, sida tirada diyaaradaha yaal, noocyadooda, waqtiyada ay duulaan, tirada gawaarida gaashaaman, nidaam difaaceedyada hawada, waqtiyada ay shirarka xasaasiga ah yeeshaan saraakiisha ciidanka cirka ee gumaystaha. shaxaada wuxuu u soo dhowaaday oo uu soo gaaray deegaan aad ugu dhowaa saldhigga oo ay shacab caadi ah deganaayeen. wuxuu bilaabay inuu xaafadaha u dhow ku dhex wareego si tartiib tartiib ah, iyadoo aan laga shakin. markuu hubsaday in wax walba ay si dabiici ah u socdaan, wuxuu la soo baxay kaamiradiisii. wuxuu bilaabay inuu sawirro ka qaado albaabada laga galo saldhigga. sidoo kale wuxuu sawiray inta jidgooyooyin ee ka horreeya ee lagu baaro gawaarida iyo dadka doonaya inay galaan.
howshaasna wuxuu waday muddo isbuucyo ah ilaa markii dambe ay u suurto gashay inuu sawiro waddo ay tababar ku sameeyaan ciidamada ku sugan saldhiggan iyo jidka ay isticmaalaan gawaarida militariga ee ka soo baxa ama gala. maalin walba waxa uu howlgal iyo indheendheen ka samaynayay qayb cusub. markii uu soo ururiyo dhammaan xogihii loo dirayna wuxuu si toos ah ugu diri jiray doctor abu sulaymaan. intaas kadib abu sulaymaan ayaa shaxaada weydiiyey su-aashan: waa sidee dhaqdhaqaaqa saldhigga nafatiin ee xaafadiina? ma jiraan tababaro ka socda gudihiisa? shaxaada ayaa ugu jawaabay: oh, waa mid aad u mashquul badan. waxaa ka socda tababaro joogto ah. waxaa ku sugan diyaaradaha F-35 24 saac walbana waxaa la keenaa ciidamo cusub. almuhim, shaxaada wuxuu sii waday in uu maalin walba saldhiggan ka soo ururiyo xogo iyo macluumaadyo xasaasi ah. ku darso, howshaas uu qabanayay kuma qaadanayn wax qarash ah, wuxuuna howshaas waday ilaa laga soo gaaray sanadkii 2022. shaxaada sidii caadadiis ahayd waxay fariin uga timid doctor abu sulaymaan, laakiin markan waxaa laga dalban doonaa in uu fuliyo howlgal ka halis badan dhammaan howlgalladii uu horay u soo fuliyey. wuxuu ahaa dalab aad u culus, una baahan mas-uuliyad iyo nafuurnimo. waxaa laga dalbaday in uu gudaha u galo saldhigga nefatim uuna u gudbiyo dalab uu ku doonayo in uu ugu mid noqdo ciidanka gumaystaha Israa'iil. shaxaada isagoon ka labalabaynin ayuu aqbalay inuu fuliyo, balse su-aashu waxay tahay, sidee suurtagal ku noqon kartaa in shaxaada laga aqbalo inuu ka mid noqdo askarta Israa'iil maadaama asal ahaan uu ka soo jeeday Falastiin? jawaabtu waxay ku jirtaa oo laga dhex heli karaa isla qaanuunkooda, sida uu dhigayo sharciga qorista shakhsiyaadka ka mid noqonaya ciidanka gumaystaha Israa'iil. askaraynta qasabka ah keliya waxay waajib ku tahay muwaadiniinta yuhuudda asalka ah, laakiin falastiiniyiinta ku hoos nool dhulalka ay Israa'iil xoogga ku haysato, ha ahaadaan muslimiin ama masiixiyiin, ma jirto qof ku qasbaysa inay ka mid noqdaan ciidanka Israa'iil. haddii ay doonayaan inay ku biiraan, keliya waa in ay si mutadawacnimo ah ugu biiraan. hagaag, sheekadu markay halkaas marayso, shaxaada wuxuu kaloo maqlay war kaloo farxad geliyey. waxaa xorriyaddiisii dib u helay saaxiibkiisii aan horay idinkugu soo sheegnay bilowgii warbixinteena, maxamed qaalib. isla wakhtigaas deegaanka bi'ir sabca waxaa ka bilowday qalalaaso u dhexeeya falastiiniyiinta halkaas deganaa iyo yuhuudda xoogga lagu dejiyey. natiijaduna waxay noqotay geerida 4 ruux iyo dhaawac 3 falastiiniyiin ah. dadka shahiiday waxaa ku jiray saaxiibkiis maxamed qaalib, waana midda shaxaada kusii dhiirigelisay inuu ka mira dhaliyo go'aankiisi ahaa in uu la dagaalamo gumaystaha af iyo adinba. bishii May 22keeda sanadkii 2022 shaxaada waxaa loo ogolaaday inuu ka mid noqdo ciidanka gumaystaha Israa'iil. wuxuu nasiib u yeeshay in laga diiwaangeliyo oo uu ka howlgalo saldhigyadii iyo xarumihii militariga ee isla xaafadiisa bi'ir sabca. markan waxaa usii furmay albaabo horay ugu xirnaa. markii horena uusan jaanis u heli karin. wuxuu helay macluumaadyo iyo xogo xasaasi ah oo muqaawamada ka saacidi doona in uu u fududeeyo howlgalkii 7 Oktoobar ama duufaanta al aqsa ee dhacay sanadkii 2023. markan wuxuu jaanis u helay in uu gacanta ku dhigo dukumiintiyo iyo qariirado xasaasi ah. mar walbana wuxuu usii gudbinayay doctor abu sulaymaan. dhinaca kale, shaxaada waxa u bilowday tababaradiisii ugu horreeyey, waxaana uu abu sulaymaan ka dalbaday marka uu tababarka soo dhammaysto inuu xogo cusub ka soo gudbiyo saldhigga ama deegaanka cusub ee loo wareejin doono. sawirna uu ka soo qaado gudaha saldhiggaas loo wareejin doono. ficil ahaanna shaxaada wuxuu gudagalay oo uu bilaabay howlgalladii xigay ee loo xilsaaray, wuxuuna ka mid noqon doonaa ciidamada dhulka Israa'iil. intaas kadib shaxaada wuxuu abu sulaymaan u gudbiyey sawirada saraakiil iyo askar badan oo ciidanka gumaystaha ka tirsan. waxaa kaloo uu gudbiyey magacyada iyo nabarada qaar badan oo iyaga ka mid ah. yacni shaxaada wuxuu bilaabay inuu diiwaan geliyo wax walba oo hareerihiisa ka dhacayay, sida goobaha ay ku kulmaan ciidamada, xilliyada ay hurdaan ama ay soo jeedaan, tirada ciidamada ilaalada ku qoran habeenkii, iyo meelaha ay ka jilicsan yihiin. intaas keliya miya? maya, wuxuu kaloo gudbiyey xogta meelaha ay ku xiran yihiin kaamirooyinka amniga iyo qolalka laga hago ama lagala socdo. sidoo kale wuxuu gudbiyey aaladaha isgaarsiinta ay isticmaalaan ciidanka gumaystaha. midda kale ee xasaasiga waxay tahay, wuxuu kaloo ogaaday xogta waddada uusaadka iyo gurmadka u soo maro ciidanka gumaystaha Israa'iil marka ay la kulmaan weerar ama khatar.
8 maalmood gudahooda wuxuu awooday inuu soo ururiyo xogo iyo macluumaadyo ay la socdaan sawirro iyo muuqaalo. Wuxuu u gudbiyey Doctor Abu Sulaymaan. Dhammaan xogahaas iyo warbixinadaas sanad kadib waxay kaalin weyn ka qaadan doonaan howlgalkii weynaa ee duufaanta Al Aqsa, kaasoo bedeli doona guud ahaan Bariga Dhexe iyo caalamka. Laakiin nasiib xumo, laamaha ammaanka gumaystaha ayaa ka shakiyey Shahaada. Waxay dareemeen in uu ku dhex jiro basaas halis ah. Bishii Maaj 30keeda sanadkii 2022, 8 maalmood kadib markii uu si toos ah ugu mid noqday ciidanka gumaystaha oo uu howshiisa bilaabay, waxaa loogu yeeray waraysigii iyo baaristii ugu horreysay. Su'aalihii ugu horreeyey ee la weydiiyeyna waxay laamaha ammaanka Israa'iil ku dhaliyeen shaki weyn, ilaa markii dambe ee u caddaatay in Shahaada uu yahay basaas lagu dhex beeray. Isla maalinkaas, ciidan ka tirsan sirdoonka Shabaag iyo laanta ammaan ayaa gaaray xaafaddii uu deganaa. Waxay bilaabeen inay dadkii deegaanka ka waraystaan Shahaada iyo waxa ay ka og yihiin. Waxay kaloo tageen gurigii uu deganaa. Waxay aabbihiis weydiiyeen haddii uu meel ka og yahay taleefankii uu isticmaalayay wiilkiisa. Aabbihiis aad ayuu ula yaabay wax socday iyo su'aasha ay weydiiyeen ciidanka gumaystaha. Wuxuu weydiiyey sababta ay u weydiiyeen. Waxay ugu jawaabeen, maya maya, wax weyn ma jiraan, kaliya baaris ayaan wadnay. Intaas kadib, waalidkii Shahaada waxay ogaadeen in wiilkooda uu xiran yahay. Laamaha ammaanka Israa'iil ay ku soo oogeen 4 dambi oo waaweyn, kuna filan in inta ka dhiman noloshiisa uu ku dhammaysto xabsiyada gumaystaha. 1. Waxay ku soo eedeeyeen in uu la shaqeeyo kooxo argagixiso ah oo halis ku ah amniga Israa'iil, waa sida ay sheegeen, iyo in uu xogo iyo macluumaadyo xasaasi ah u gudbiyey. Sidoo kale waxay ku soo eedeeyeen inuu haystay hub sharci darro ah. Ugu dambeyntii, waxaa soo baxay khabar la yaab leh. Kadib weerarkii duufaanta Al Aqsa, xarakada cagaaran ee Gaza ayaa soo saartay bayaan rasmi ah oo ay ku sheeganayso in ay basaas ku dhex beerteen gudaha ciidanka gumaystaha, uuna kaalin weyn ka qaatay howlgalkii duufaanta Al Aqsa. Waxay kaloo bayaanka ku sheegeen magaciisa oo ahaa Shahaada Risaaq. Haddaba maxay xarakada u sheegatay una kashiftay magaca basaaskooda, kaasoo weli ku jira gacanta cadowga Israa'iil? Maxayse tahay hadafka ay ka lahayd inay kashifto ruuxa uu yahay wakhtigaas? Su'aashan weli wax jawaab ah looma hayo. Adinkana daawanaya ee nala soo gaaray ilaa iyo gabagabada warbixintan, bal aragtidiina ka dhiibta, maxay idinla tahay?